الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وحين وحكورن دون أحكام الزكاة سكذا يا أحكام تيدا أما علم جيدا وبدأي لكن شنية طبانك الدقيقين وهيسنه شنية طبان قضب ayaan ku soo ururin doonaa su'aaluhu u badan yihiin ama casrigan wareega waxa ka zakatu duyuun sakada deynta deynku waa laba qaybood mid adiga lagu leeyahay ka waxa sakeynaya qofkii lahaa oo wad iska jaraysa iyo mid adiga ka maqan isagana adaa sakeynaya leena qof waliba wuxuu leeyahay sakeeyaa laakiin deynta ka maqani waa mid aad heli karayso oo haddii qofka lagu leeyahay aanu waxba haynin ama qofka lagu leeyahay uu dafirsan yahay xoolabaha hayee sakeyn maysid ilaa aad hesho leanna kaama helaysid deyntu waa labadaa waxaa ka mid a meherkii deyntaa waxaa ku jira meherkii dumarka ee mu'akharka ahaa ama mu'ajalka ruuxa dumarkii ninka ay ku leedahay isna waa deynu hadduu ninku hayo sanad walba waa inay sakayso iyada u daysato baan ka dhigatay haddii aanu hayninna markuu helaabay ka qaadanay sakayn qodobka labaad waxa weeye deynta aad ku leedahay qof faqiir ah saka ma u siin kartaa oo ma odhan kartaa lacagtii aan kugu lahaa inta ahayd la soco sakadii aan bixinayaan u qaatay maya sax maaha taas waa inuu qofka u dhiibaa oo uu dhaahdaa deyna waan kugu lahaa laakiin sakadan aan ku siiyey qaado shardi markaa waa inaan uga dhigin ku bixi deyntii sakadiisii waa inuu siiyaa faqiirkaa ikhtiyaarka leh inuu deyntii iskaga bixinayo inuu sideeda u qaadanayo yuusa isku xidhin ama shaqaalihiisii odhan deyn baan idinku lahaaye waxaan u xisaabiyey sakadii ilaahay baa wuxu uhi wa aatu zakaa sakada dhiiba manaa dhiibina adunbaa goostay qodobka saddexaad qofku hadduu lacag akownka ku haysto ama xoolo noolba oo u diyaariyo inuu ku guursado ama ku xajiyo ama guri ku dhisto ama mashruuc geliyo uu ka ganacsanayo niyadiisu waa caynka lacagtiina way taallaa 12 bilood baa u soo wareegay ma sakeynaya mise mashruuca la eegaya ma uu sakeynaya in mar haddii aan mashaariicda noocaas wali aanu gelinin wixiina kaashu yahay uu sakeynaya qodobka afraad haddii maalkii isaga ahaa sakadu ku waajibtay intaanu wali ka bixinin uu naaquso amaba la dhacaba xoolii sakadii way ku waajibtay waqtigiina waa la gaaray isagaa gaabis noqdo muu bixinin sakadiina way ku waajibtay maxaa la yeelayaa xooliina sidii ku tageen mar haddii isagu tacaddi sameeyey oo isagoo bixin karaya uu bixin waayey sakadii waa lagu leeyahay xoolihii haba dhacmeen leanna wuu bixin karayay dad waxoodii uu bixin karayaa buu iska sii haystay markaa tacaddi baa ka yimi qodobka shanaad zakaatulxuliy dahabkan ay xidhaan dumarku iyo sakadiisa culimada islaamku laba qowl bay leeyihiin sakadu way ku waajibaysaa iyo kuma waajibayso hadduu gaadhay heerkii uu ku sakoobayey 85 garaam iyo wixii ka badan sanadna ay haysato jumhuurul culamaa waxay u badan yihiin dahabka oorida ama ruuxa dumarkiiba ay isku qurxinayso intuu doonayaba ha gaadhee kol haddii wixii ay hal mar xidhanaysa uu yahay inaan saka lagu lahayn saasay culimada islaamku u badan yihiin wax naamiyahoo kordhaya maahe waa kutubtaad haysatoo kale laakiin hadday laba bedladood iyo ka badan leedahay dee tay xidhantay mooye waxa kale kaydka ah way ka bixin
qodobka lixaad zakaat fi rawaatib dadka qaarkood baa mushahar leh mushaharkuna wuxuuba gaadhayaaba heerku ku sakoobi lahaa $4,000 iyo wixii ka badan ayuu gaadhayaa mushaharkiisu qayb ka mid a culimada casriga ayaa waxay yidhaahdeen midhihii beeraha ayuu la mid yahay markaa uu goostuu qaato ha sakeeyo laakiin qowlka raajixa waxa weeye mar hadday lacag tahay 12 biloodna aanay u soo wareegin inaan saka lagu lahayn sadaqa mooyaane qodobka lixaad waxa weeye mawaashidu ama xoolaha noole waxyaabaha kale sakooba waxay kaga duwan yihiin laba arrimood baa lagama maarmaan ah inay foofayso oo xoolahan aynu dhaqaneen meelaha magaalooyinka hareerahooda lagu hayo ee geela iyo wixii la mid ah iyo dee xoolaha kaleba ee sanadka intiisa badan gacanta wax laga siiyo intuu doonayaba ha gaadhay saka laguma leh 12 bilood buu sanadku ahaa 7 bilood 8 bilood baa gacanta wax laga siiyaa isku celcelis marka la eego intuu foofa iyo inta uu wax calaf la siiyo kaasa ka laguma laha sadaqa mooyaane marka mawaashimta iyo xoolaha waxa shardi waa mawaashida inay foofto haddii la calfiyo saka laguma leh shardigeeda labaadna waxa weeye allah takuuna caamila inaanay ahayn wixii la isticmaalayay rarka iyo gaadiid ahaan loo adeegsanayay sida awrtii iyo kuwii beeraha lagu qodayay biyaha lagu waraabinayay awrtii la raranayay haba badnaatee saka laguma leh qodobka sideedaad sakada ma la kordhin karaa ilaa waxa la isku ogaa cibaadada lama siyaadiyo lamana naaquso salaada ma kordhin kartid soomka ma kordhin kartid sidii sharcigu ku jideebaad u raacaysa sakada saka waran iyada cibaado maaliya weeye waa cibaado xagga dhaqaalaha iyo xoolaha ah iyada cibaadooyin kale waxay kaga duwan tahay tajuuzu fiiha ziyaada waa la kordhin karaa ee kordhinteedu waa bidca lama odhanayo waa dhaqaalo dhaqaalahaas inuu dadkii loo waajibiye ama loo qadaray u kordhaa way fiicanta nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam nin baa siiyey saka intii la doonayay ka kororhsan ama ka shilis ama ka wanaagsan markaa nebigu waxa uu ku yihi daaka aladii calayka wain tadawacta bikhayrin qabilnaahu minka wa aajaraka allaahu fiih sakadaanu annagu kugu lahayn muslimka haddaanu nahay waa intaa laakiin haddaad adigu siyaadisay waa kaa aqbalaynaa ilaahayna ha ka abaaliyo xadiidku waa xasan culamaa ulmaalikiya qaar ka midaa diiday laakiin daliilkaasaa ayaa hor joogsanaya qodobka sagaalaad sakadu ma dumaday ku waajibtaa mise xoolaha ma qofka dumadiisa iyo dushiisay saarantahay mise xoolihiisa waa laba masalo oo dee qoloba waxay yidhaahdeen culimada haddii la yidhaahdo sakada waxaa lagu leeyahay qofka dumadiisa oo isagay saaran tahay waxaa meesha imanaya xoolihii haddii ay dhacmaan ama xadgudub ha sameeya ama yuu samaynine isagaa lagu yeelanayaa mar walba laakiin qowl kale xoolaha lagu leeyahay xoolihii hadday dhacmaan waxba laguma leh masaladii hore aynu soo sheegnay bay ku xidhanta sida raajixayna waxa weeye qofkan xoolihiisan baa sakada lagu leeyahay meel maran muxuu mowd ka guri daanu xoolaba wadaninba marka xoolaha lagu leeyahay dumadda laguma leh masalada tobnaad zakadu waxa ay ku waajibtaa un fi lquuti lmudakhar midhaha beeraha marka la eego waa wixii la kaydiyo wixii kayd gala un weeye waxaynu ogsoonnahay midhaha beeraha maanta beer biyooda ayaa lacag badanba oo ka kharash iyo ka lacag badan ama ka dakhli badan beerahan la yidhaha beer roobaadkee roobka lala sugo kuwan mashiinada lagu waraabiye bustaanada dakhligooda aada u badan haddana kaasaan sakoobayn ka sakoobayaa waxa weeye midhahan kaydka gelaya wixii markaa ay ka baxaan ama midhahaasaa saka gelaya masagada digirta baasha kale arabakida waxaa noocaas ee kaydka gelaya nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wakhtiguu joogayna kuwaasunbaa sakada laga bixinaye kuwan yaryara markiiba khudradda ah fruudka ah bislaanaya ee baaba-aya lagama bixin jirin yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati maa kasabtum wa mima akhrajnaa lakum min alard qodobka 11 xoolaha ama waxaan la sakeynaya shalay soo sheegnay 6 nooca
ma iyaga laftoodunbaa wax laga bixinayaa mise qiimahooda waa la bixin karaa si kale haddaynu dhigno dahabka ma dahabnimunbaa lagu bixinaya mise lacag xoolaha nool ma qiimahoodaa la bixin karaa mise xoolaha nool laftooda raashinka ma raashinimunbaa lagu bixinayaa mise lacag baa laga bixin karaa sida jumhuurulculamaa ay qabaan culimada islaamka xoogoodu isku raacsan yihiin waxa weeye sekada ganacsiga ama tijaaradda mooyaane in waxa kaloo dhan caynta laga bixinayo sekada ganacsiga lacag baa la bixiyaa laakiin xoolaha kale la sekeeyo oo dhan mid nool iyo mid kaleba caynta wax laga bixiyaa raashinka raashinkii dahabka dahabkii xoolaha xoolihii markaa qofkii hadduu idhaahdo masaakiintan u sarifaya oo qaalintii uu bixinayay ama geel uu bixinayay uu kaash ku bixiyo kaashkaasi allah u aqbalo waa sadaqa sunno ah laakiin neefkii waa lagu leeyay midhaha beeruhuna waa nooca dahabkana kaad haysato waxba ka bixin maysida waad iska haysanoo jarjabin mayside garaamo yar baad ka iibin dahablaha qodobka 14aad sekada ma la dadejin karaa haa waa la dadejin karayaao qofkuunbay dee ku culus tahayoo haddii xoolihiiba ay ka baxaan isagiiba xoolihii sekaduna kasii maqanyihin miskiinkii waxba kama maqnaa waktigii nabigana sala allahu calayhi wasalam asxaabta waa ka qadimayey sida adeerkii cabaasba uga qadimay qodobka 13aad miskiinka intee la siinaya masrafka markaynu eegno iyo meelaha lagu bixinayo miskiinka haddii sekadu badan tahay bulshada la siinaya ama meelaha lagu bixinayo sekada waa loo kordhin karaa haddii sekadii aanay yarayno wax soo yuuban aanay ahay inay badan tahay bal waxaa la siin karaa kifaayata sana wax sanad ku filan haddii sekadii maal 10 kun 100 kun la qaybinayo dee dadka loo qaybinayo 5 kun 10 kun mid waliba wuxuu ku shaqaysto ama sanad ku filan oo inaga reebo faqrigiisa ayaynu siin doonaa culimadu waxay uga daliishadaan nebigu sala allahu calayhi wasalam mararka qaarkood baa dhacday isagu sekadee muu qaadanayni iyo sadaqe wixii fay-a iyo uu ka helo xoolaha gaalada laga soo reebo sanad buu reerihiisa u dhigi jiray mararka qaarkood way iska gaajoon jireen mararka laakiin uu kayd dhigayo hal sanuu mararka qaarkood reerka wuxuu dhigi jiray markaa wax uu qofkaasi ku faqri baxo oo sanadaha dambe isagu si uu sekada inoo siiyo wax buuran oo badan ama uu ku guursado ama uu ku ganacsado ama guri ku dhisto waa la siin karaa ugu dambeyntii qodobka 14aad sida loo sakeynayo sekadan la yidhaahdo sekada ganacsiga oo iyadu ka yara duwan nidaam sekooyinka kale xoolaha kale la sakeeyo markaynu soo ururino qofku waxa uu haysto ayuu isu geynayaa badeecada markaa la iibinayo ama la adeegsanayo haddii dee warshadii wax lagu waxaynaya badeecadaas waa isku tootal garaynaya waa qodob waxa labaadoo uu soo qaadanaya sidii nidaamka xisaabaadkuba uu ahaa kaashkiina uu ku hoos qorayaa u yaalay waxaa kaloo saddexaadoo isagana uu ku hoos qorayaa deyntii dhoweyda u maqnayd ee uu dadka ay ku maqan tahay kasoo heli karayay saddexdaasuu isu geynayaa wuxuu ka jarayaa markaa deyntii isaga lagu lahaa ilaan ma laha milkigiisa maahe inta soo hadhay buu odhanayaa loo qaybiyo 40 meelood marka loo qaybiyo meesha soo boodaabaa sekadii noqonaysa waxaa ka mid a sekada iyada ah ee ganacsiga wax imika lacagteennii oo dhan aynu gelinayoo dhulka la idhaahdo dhulku waxa uu noo noqday baan ayuu dadkii u noqday markii dowladdii laga faramaroojiyey ee dadweynihii dhulkii ay iska yeesheen lacag aada u badan baa lagu kaydsadaa dhulka oo ku jirta dhulkaa isagaa haddii loo dhigay si looga ganacsado oo hadhow uu u kordho oo looga sii baaci mushtareeyo oo loo iibiyo waa badeecaddii tijaaradda waa min curuudi tijaara waxa uu ka mid yahay alaabtii laga ganacsanayay laakiin dhulkii loo dhigay in warshad laga dhiso ama guryo laga dhiso guryahaasi xataa kuwii lasii karaynayaba ha ahaadeene dhulkaas isagu ma sakoobayo mar haddii dhismo aada u dhigatay iyo raasamaal laakiin wixii ganacsi ah ee aada leedahay aad ka macaashida ha kuu biiro wase u badan tahay waar waa yaro dhigaya ha ii kordhee isaguna liiska sekadu ku jiraa 15 qodob ayaynu ku soo ururinay allah inagu anfaco sekadana la iska ilaaliyo وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahin kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra